kulanti wacan asxaabey kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha maxaa ka cusub saaxadda kubadda cagta horyaaladii oo furmay kulamadii hadda soo dhamaaday Arsenal oo gool 2-0 ah ku furatay Bayer oo 6-1 ku dhufatay in Frankfurt gool maaha xasuuq baa ka dhacay horyaalka Bundesliga Lyon oo iyaduna 2-1 ku furatay Legacy oo gool ka gaadhay Roma oo la wareegtay Wijnaldum Mbappe oo dhaawac ku maqnaanaya kulanka koobaad ee PSG iyo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga muuqaalkan intaynaan bilaabin like saara sina share garee saaxiibayaal si asxaab badan oo gaadho haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana furo saa la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kala iibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada aynu ku bilownay Gunners oo caawa horyaalka ku furatay bilow qurux badan gool raaxa leh 2-0 ay ka gaadhay kooxda Crystal Palace waxayna kula ciyaaraysay garoonkeeda ciyaartoyda Mikel Arteta waxay sanadkan leeyihiin diyaar baan nahay horyaalku waa horyaalkeygii garoonka iskena sanadkani jamaahiirtaasi koobka ayaa u soo uraya daayiro fara badan ayaa lagu arkayaa xidiga fara badan oo sanadkan dagaalaman ay diyaar ka tahay Arsenal gacan badbaado ay ku jirtaa doorkan William Saliba iyo Ramsdale oo is helay maanta caawa way ku dhibeen inay goolka gaaraan Crystal Palace isku dayo badan ay sameeyeen sanadkan kooxaha waaweyn ay Arsenal ku dhibi doontaa inay goolkeeda gaaraan William Saliba iyo Ramsdale hayay sanadkan in goolka la gaaro Arsenal way adkaan doontaa daaficeedu way isdhameystiray uu adkeeyay in baashiisa tooga inkasta oo sax aan waxba laga qaban karin oo mararka qaar soo mariyay haddana William Saliba ayaa muujin yahay daafac dhaafay oo u qalma inuu matalo Gunners oo caawa sumcadda Gunners ku darso oo caawa Arsenal waxay saxanaysaa iyagu horyaalka hogaaminaya haddii horyaalku saas ku dhamaado ama la joojiyo in guuleystuhu waa Arsenal 3 dhibcood iyo waliba 2 gool oo saafiya ay halkaas sii dhigatay Gabriel Martinelli ayaa goolkiisa koobaad waliba goolkii koobaad ee horyaalka Premier League sanadkan 2022-23 ku furtay kubad madaxa oo ka helay Zinchenko oo isaguna baasha Trigos oo ciyaartan wacdar muujiyay oo baashiisa xoreystay inta badan aan laga soo galeyn ayaa mooday in baashiisa badan laga soo galay haddana William Saliba ag joogay loogama warwareyn William Saliba waa dilaah shub weeye sanadkan daaficeedu Arsenal waliba Brazilianku sanadkan aad ay u dhaarsan yihiin ku darso oo horyaalka Premier League sidii hore ugu soo hagaagina sanadkani koox waliba dagaalamaysa ciyaartoy waliba waxa uu diyaar u yahay in uu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisa ugu dambeeyay soo qayb ka noqdo xulkiisa qaranka oo sanadkani uga mid noqdo ciyaartoyda safarka qadar u baxaya ciyaartoy kasta waxa uu doonayaa inuu sanadkan ismoojiyo si xulkiisa loogu daro Blake in Brazilianka saddexda Gabriel maxay sameeyeen Jesus waa xamaalinay Gabriel Martinelli goolkiisa baad ku turtay Gabrielka daafici waa ka sida isku haystaan William Saliba iyo Gabriel waxba lagama qaban karo sanadkan Arsenal balka waxa waaweyn aan eegna say goolkooda ay u gaaraan waliba sanadka waxaad moodaa inta badan Arsenal laga haystay khadka dhexe haddana waxay ku ciyaaraysay laba burburiye Xhaka iyo waliba Barty way diideen in xagga loo dhaafo kubaddas way iska adkeeyeen kulankii caawa inkastoo aanay ka yareysanin in Crystal Palace oo saaxa oo garabka bidix uu ka dhibay Ben White nafta uu keenay haddana William Saliba ayaa asturayay inta badan xidiga khadka dhexe isaguna uga ciyaaro kooxdaasi Crystal Palace ayaa mooday inuu inta badan uu khadka ka haystay khadka dhexe inkastoo ay Arsenal ku ciyaaraysay double six haddana Arsenal khadkeeda dhexe aad ayaa loo maamulay kubadda intii dambe waxaad mooday in daafaca iyo weerarka Crystal Palace ay ciyaarayeen weerar waliha ayaa lagu soo qaaday intii dambe haddana William Saliba iyo Ramsdale gacan badbaado ay ku jirta Arsenal bas sanadkeedii leeyahay kooxaha waaweyn fariin bay u diraysaa William Saliba iska ilow Virgil van Dijk iyo waliba Diaz sanadkani William Saliba ayaa horyaalka qabsan doona
wuu qalmaa runtii inuu ciyaaro kooxda Arsenal. Wata Arsenal durto way iskentay waxay leedahay kaalintan hayay Britolia ay ka qaadaya waa Manchester City, Chelsea iyo waliba Liverpool. Britolia ciyaarayaan yaa ka qaadaya bay leedahay sanadkan waa u dagaalamaya sidii sanadkii hore ugu soo hagaagina da'yar aad baa loo carbiyay lacag baa la geliyay. Gunners isbaak baa sanadka ka dhici doonta kubadaan arkay waliba sidii u ciyaarayeen fariin ay diraysaa Arsenal. hogaamiyaha horyaalka Premier League waqti xaadirkan la joogo waa Arsenal indhaha lagama qarsan karo. haddii aanu ka nimaado horyaalka Premier League oo caawa biloomay oo aynu eegno horyaalka Bundesliga guul lama oran karo. waa xasuuq 6-1 Frankfurt waxbaa ku dhacay ku darso waa guuleystaha Europa League iyo waliba guuleystaha Bundesliga ayaa caawa foodeystiray oo lagu biloobay. haddana ceeb ayaa la kulantay Frankfurt. Sadio Mane ayaa goolkiisa koobaad gaadhay daqiiqadii 28aad. waxaad moodaa durtaba inuu la qabsaday horyaalkaasi Bundesliga sidoo ula haystay ciyaartoydiisa qaabkay u wada ciyaarayeen si kubadda isku siinayeen si weerarkooda qaadayeen durtaba la haystaa xidigan markii soo hore kaynu xamaalinayo Liverpool oo kaliya kuma soo baxayn koox kasta oo tago qaab ciyaareed fiican soo bandhigay way cadayd. goolka koobaad ee guud ahaan horyaalada qaaradaas yar waxa caawa saxaxay xidigaasi Kimmich ayaa daqiiqadii 5aad ee kulanka goolkii koobaad ee guud ahaan horyaalada dhan dhaliyay. sidoo kale goolka labaad waxa uu dhaliyay Bayer Bafad Mane oo daqiiqadii 9aad ku tuurtay. Saliba Musiala ayaa isaguna 2 gool ku tuurtay waliba Gnabry horyaanka waxba laga qaban karin. halka gool ee Madiga waxa uu dhaliyay Miani daqiiqadii 64aad. kooxdaasi Frankfurt waa guuleystaha Europa League waa kooxdii sanadkii dhaweyd ka reebtay kooxda Barcelona ee niyada ka jabisay. waa taad aragtid nooca loo galay dhulka la tiiday gool lama oran karo ee magaca loo bixiyo. sidoo kale horyaalkaasi wadankaasi Ligue 1 ayaa isaguna caawa furmay waxaana lagu bilaabay Lyon iyo waliba Chelsea. Lyon ayaa 2-1 kulankan 2 casaan ayaa la qaatay. waxa uu ku muujinayaa horyaalkaasi Ligue 1 inuu yahay horyaal inta badan la dagaalamayo oo ciyaartoy shub ah ay joogaan xoog miirana inta badan waa la dagaalamaya. waa sababta uu dhaawac ugu badan yahay ciyaartoyga horyaalka Faransiiska ka yimaada ka shaqeyn waa ciyaartoy dagaal iyo qajajac u bartay. goolka koobaad waliba ciyaartoygii ku soo laabtay kooxdiisa Lyon Lacazette ayaa isaguna caawa goolkiisa ku tuurtay daqiiqadii 22aad. ku darso goolka koobaad ay Lyon dhalisayna caawintii 9 lahaa. golaha kooxdaas Lyon ayaa casaan qaatay sidoo kalena Chelsea ciyaartoyba isaguna casaan ka qaatay. waxay muujinayaan Ligue 1 inuu yahay horyaal inta badan la dagaalamayo oo kubad adag saad gool ku dhalisa runtii way adagtay. horyaaladu waa ka way bilaabmeen iyo kooxii guulahooda ku furtay iyo waliba kooxa la xasuuqay Arsenal oo iyaduna horyaalka ku bilaawtay guul 2-1 ah. wararka soo baxaya sheegaya ay kooxdaasi Roma ay la wareegtay xidiga khadka dhexe kooxda PSG Wijnaldum xidiga hore Liverpool oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku dhibtoonayay kooxdaasi PSG ee aan fursad badan ka helin. kooxda Roma ayaa amaah ku qaatay ku darso waxa heshiiskana ku jira in sanadka hadii qaab ciyaareedkiisa ku qanacdo ay la wareegi karto. wana khad dhaxo cajiib ah kubadiisa waliba xirfadiisu muran kuma jirto. sanadkani uu ku xamaalan doonaa Mourinho kooxda Roma uu dhisaya waa ciyaartoy kale oo weyn oo safkooda ku soo biiraya. sanadkani Mourinho oo ciyaartoy sanadkii dhawaadna koob ku qaaday imika ciyaartoy badan uu helay. Mourinho lagama shaki karo waa tobre aad u fiican ciyaartoy badan buu suuqa ku jira oo isjacburnaya. waxa uu rabaa sanadkan si lama filaan ah ku qaado horyaalkaasi wadankaasi Talyaaniga Serie A. kooxda Barcelona ayaa iduguna heshiis la bilowday xidiga Basha Thiago ciyaar kooxdaasi Chelsea waa Alonso ee muddooyinka badan ku soo qaadanayay garoonkaasi Stamford Bridge kadib isagoo ahaa daafac labaad dooqa labaad ee Thomas Tuchel oo imika la keenay Cucurella. waxa uu doonayaa inuu iska baxo kooxdaasi Chelsea waayo labaad buu dul qaadan lahaa saddexaad ma yeelay buu leeyahay. Barcelona baan tagaya ifasaxa ayuu taagan yahay. heshiis ay la sheegay Chelsea ay Barcelona ay wada gaadheen haddaba heshiis bay wada gaadheen bal leeyahay xidigan wuxuu doonayaa inuu tago waxaana doonaysaa xidigan Basha Triga heerka caalami inay Barcelona qaadato waana ka serious
in isla xagaaganba ay suuqa ka qaadato kooxdaasi Barcelona. PSG ayaa maqaal ay soo saartay kulankeeda ay Bertole ciyaarayso ay weliba ku furanayso horyaalkaasi League One. kulankan ay Bertole ciyaarayso ay waxay sheegtay inuu dhaawac ku maqan yahay laacibkeeda da'da yar ay dhawaan heshiiska waqti dheer weliba ku qaadanayo mushaarka badan waa Mbappe uu ku maqnaanayo waxaana safkooda hogaamin doona Lionel Messi iyo weliba Neymar. safkooda ay soo saartay sanadkani xilli ciyaareedkaasi u safan doona waxayna sheegeen inuu dhaawac ka maqnaan doono Mbappe. waa daayir cajiib ah runtii sanadkan gool dhalinta iyo weliba assistiga horyaalkaasi League One ba looguma iman isaga meel saartay labadaba macallin Lionel Messi oo jooga ayuu laba caawin ka qaaday gool dhalintana isaga cid kuma qabsan kartaba sanadkan in la tartamo waa laga yaabaa laakiin sanadkii dhow isaga meel saartay ciyaartiisa koobaad uu seegi doona dhaawac soo gaaray oo kooxdiisa xaqiijisay. wararkeena ciyaar wanaagsan saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum.